السلام عليكم أخياري سود هذا waxaan go'aansaday inaan halkan idinkula wadaago filin yar oo shorti ah laakiin muhiimadda uu xambaarsan yahay ay tahay mid aad u weyn markaad daawato muuqaalkan ama kilibkan yar noloshaada ma samayn doontid khalad midkan la mid ah gabar lagu magacaabo juri iyo wiil la yiraahdo ayeeshaan ayaa ahaayeen laba qof oo saaxiiba oo close friends dabcan ah oo isku xiisa markasta isla dalxiisa meelaha qaarna isku raaca maalmaha ka mid ah ayay markii iskoolkoodii loo fasaxay kadib ayay meelo yar oo lagu dalxiiso oo magaalada bannaankeeda ah ayay isku soo raaceen qoor barqaca oo saacaduna ay tahay adiga 4:00 kadib markii ay laabtaan ay rabeen intaan 6 saac la gaarin oo guryahooda u laabtaan wuxuu marka labadooda markii uu joogay dad isku faraxsan ayay ahaayeen markay cabaar joogeen xogaa ay socdeen ama carareen ayuu isagu wuxuu soo bixiyay baastooladiisa ayuu ka soo bixiyay boorso ama baag waxa loo yaqaan uu watay kadib ayuu tusay markii wuxuu rabay inuu leefka bara uu yiraahdo meeshan ku rid si dhaqso markuu rid maagayba waxaba halka ka soo muuqday nin isagu marka dabcan waa mid markasta naagta ku maqan iska ilaali mistaakaada ugu tirada badan wuxuu noqon doonaa ama khaladka ugu weyn gasho inaad naagtaada ama saaxiibta aad meel ugu dalxiisto khaladka ugu weyn aad geli doonto wuxuu noqon doonaa iyada markasta ku maqnaato fadlan iyada ha ku maqnaanin ee ammaankeeda ama ammaankiina sugo dabcan baasolada yarkan wuxuu soo qaatay si uu ammaanka ugu ilaashado ama meesha uu waxyaalo kala kulmi doona ama dhalinyaro aan wanaagsanin laakiin isagu taasba isma lahayn laakiin markii hore ugu soo talagalay inay wax kasta ku qabsan karaan haddii aad dalxiisayso wax kasta ayaa ku qabsan kara marka waa inaad wuxuun ugu yaraan aad soo qaadato waa muhiim marka gabadhii ayaa ka cartay saaxiibtiisa gabadhii ahayd ayuu dabcan ka daba tegay soo gabadhii isagu uga daba cararo ayuu gabadhii ka daba tegay halkaana boorsadii iyo waxa uga dhacay baastoladii uu watay ninkii oo markii hore ay isqabsanayeen ama uu hujuumay oo iska tagay ayaa si kadiisa soo socda baasolada ay lugta ka taabatay kadibna baasolada ay soo qaatay wuxuu raadiyay marka dadkii boorsadii baasolada watay halka sheeda sare ayuu ka arkay laakiin ninku waa mid markasta ku maqan khaladkiisa ugu weyn weeyaan gabadha ayuu ku maqan gabadha ayaa tustay qof ayaa halka naga soo fiirinay baasolada dabcan waa haysta isaga si geesinimo leh iska dhigay oo yiri saaxiib baasolada haysataana iska lagu soo wareeji waxa la yiri fog of ama wax la mid ah ama salama beach waxa gaalada isku hadlaan wax la mid ah kadib ninkii isku dagay inuu hujuumo laba kale oo saaxiibadiisa ayaa halkan ka soo baxay dabcan oo iyadoon laba baastolad wata kadib gabadhii way naxday xagga saaxiibkeeda ayay soo yara carartay gabadhii isagii marka wax la isla hadlay wixii saaxiibiya gabadhan oo aniga gabar saaxiibtay nolosheeda ma doonay inay wax gaaraan aniga daahirtiin waxa rabtiin ugu sameeyaa ama idin anaga rag islaa dabcan markii dambe waa la isku afkartay gabadhii ayaa iska tagtay maxaa dhici doona halka qisadu ka bilaabanayso marka waa meeshan kadib markii ay gabadhii iska tagtay ayaa wax la yiri ninkan shaatiga saaxiib iska bixi shaatiga ayuu ninkan bixiyay kadib shaatiga bixinay ayuu mid ku qabtay kii ayuu san ugu qabtay mid kala haraatay ku dhuftay kala xaggaas ku yara dhacay kadib waxay dabcan inay isaga dilaan adii wax la isla rabtay kadib isaga ayaa la xirxiray dabcan mid iyaga kamid ah ayaa wuxuu saaxiibtu gabadhii fasahay isaga ma gabadha bedelkeeda ku sameeyno midaa wuxuu yiri ninkan waa rag saaxiib uu xoog badan yahay horta inaan jilcinaa kadib ayay halkii markay ninkii ay xirxireen saddexdoodii oo ay rabeen inay waxyaalo adiga aan wanaagsanin ay ku sameeyaan ama inay bool ka tuuraan si ay kadib leen gabadhana ninka way soo reenaysaa ay gabadha kadib bedelkiisa ay gabadha ugu sameeyaan ayaa markay saas ku sameeyaan xirxirana si kadiisa waxa timid gabadhii mid kamid ah ay madaxa waxay ugu dhufatay dhagax mid kale ayaa ku soo orod maagay sunta dadka indhaha kalimeysiida ay uga seedeen indhaha kadibna halkaas ayuu ku dhacay kadib isagii ayaa soo baraarugay indhihii iska furay kadib gabadhii saaxiibtiisa ahayd ayaa sidaas ku badbaadisay ma u malaynaysaa khalad adiga aad gashay gabadha saaxiibta ah maadaama aad adiga marka hore tiri gabadha la iska fasaxo iyadana abaalkeeda sameysay inay adiga dib kugu soo laabato maadaama ay ka samir weysay ay ku badbaadisay
khalad lamida khaladkan weligaas ku samayn wixii commentiyan xag hoose nagu soo dir intaan kulmi doono muuqaalkan muuqaal kale nabadgelyo